السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بشوين الصوماليات آديات بان ني سلامنا صاحبيال كود سو دواada markasta mar walbana si aad ogsoontiinba waxaanu ka shaqeynaa waa bulshadeena horumarinta caafimaadkeeda. Halka waxaan iigu soo gudbin doonaa qaybta taranka waliba siiba qaybtii ragga. Qaybta raggu aad iyo aad bay run ahaantii ay muhiim u tahay. Qaybtan waxay yaabo badan bay qabataa. Ninka raggaana waxyaabo badan bay u qabanaysaa. waxay ka kooban yihiin 3 shay amba 4 shay saddexdan shay waxa weeyaan tan waxa weeyaan waa fertilize man baa la yiraahdaa oo waa ragga waxay qabataa inuu gaxanta inuu ninku biyo ku filan oo gaxan ku filana inuu soo deyn karo ayay samaysaa oo halkii tastiga iyo xiniyaasha ayay shaqadooda siyaasa waana vitamin tan waxa la yiraahdaa multimaka waxay aad iyo aad ugu fiican tahay laba meelood inay biyo bax degdeg ah dib ay horta u dhigtaa oo biyuhu ninku inuu biyo bax degdeg ah sameeyo dib ay u dhigaysaa sidoo kale u shiragnimada iyo waxyaabaadkan way xoojisaa sidoo kale waxay aad iyo aad u qabataa halka prostate-ka qanjirka raganimada ay aad ugu fiican tahay tan waa berry nectar waxay u wanaagsan tahay inay inta kaadi mareenka wixii infections iyo waxyaabaadkaas oo dhan ka clean garayso laba waqti baa la qaataa alaabta waa xilliga aroortii iyo sidoo kale iyo xilliga galabti cuntada kadib tan waxa weeyaan fertilize laba mid buu qaadanaya qofku tan multimaka xabad buu qaadanaya aliola berry nectar kan wuxuu qaadanaya 60 ml labada waqti ee ah aroortii iyo sidoo kale galabti sidoo kale waxa wanaagsan xilligan waxa weeye markuu xaaladani waa xaalad qusaysan labadiiba ninkii odayga ahaa iyo gabadhiiba waa qoyska wax quseeya saadaradeed waxa ugu wanaagsan waxa weeyaan inay ninka iyo gabadhuba ay wada bilowdaan qaybtii dumar gabadhuna qaybteedii ay bilaabanto qaybtii dumarka ninkuna uu qaybtiisa bilaamo waqtiina marka timeka aan la wadayo iyo sidoo kale xilliga aan kulanka la sameeyo waxyaabaadkaas oo dhanna si gaar ah ayaan iigu sharxi doonaa aad baad mahadsantiin ku soo dhawaada kamanigeena Forever Living Product iyo qaybta caafimaadka. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.